halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggan internetka ee voa somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah bisha abriil waa 14 sanadka 2024 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida Iiraan oo weerar gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ahba ku qaaday Israa'iil. warbixin iyo falanqeyn ayaad ku maqli doontaan. saacadii ugu dambeeyey ayay dagaal weerar ku soo qaaday oo xagga gantaallo iyo droniska diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku soo qaaday Israa'iil. muddo badan ayayna haway ku soo jireen, laakiin haddeer sidaan shaashadaha ka arkayno waxaa bilaabatay inay magaalada Tel Aviv iyo laga shiday dhawaaqa digniinta bixiya ee ah in madaafiic ay ku soo dhacayaan. waxaad sidoo kale maqli doontaan sida loo xanaaneeyo dadka marka ay gaboobaan dalkan Maraykanka oo ka duwan sidii Soomaaliya ay ahayd. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeena, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada ruushka ayaa guulo la taaban karo sheegay inay ka sameeyeen gobolka bari ee Ukraine oo ku dhow magaalada warshadaha badan ee ruushka uu gumaysto ee Avdiivka, oo sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada ruushka sabtidii isagoo ku hadlayay kanaalka Telegramka uu sheegay inay guulo badan ka gaareen. waxa uu yidhi xaaladda dhinaca bari aad ayay u sii dartay maalmihii lasoo dhaafay, isagoo intaasi ku daray in ciidamada ruushka ay xoojiyeen weerarada ay ku hayaan dhowr jiho oo ka mid ah 1,000 kilomitir ee dherarka ah ee safka dhinaca dagaalka ay uga jiraan dhanka ruushka markii la eego kuleylka cimilada oo qalalan iyo sidoo kaleeto doorka ay ka ciyaari karaan sare u qaadista ciidamada ruushka hababkooda dagaalka ayaa keentay ayuu yidhi in si degdeg ah ay uga gudbaan dhulkaasi qallalan. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay la wareegeen tuulada Bermos la yiraahdo ee ku taala gobolka Donetsk ee dalkaasi Ukraine, halkaasoo qiyaastii 11 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada sida weyn loo burburiyey ee Avdiivka oo ruushku ay qabsadeen bartamihii bishii Febraayo. Ukraine ma aysan xaqiijinin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo sheegashada ciidamada ruushka inay ku gacan sarreeyeen dagaalkaasi ah. Iiraan ayaa xilli dambe oo sabtidii ah waxa ay weerar argudasho ah ku qaaday gudaha Israa'iil, hase yeeshee ciidamada milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen qaybo badan oo ka mida gantaaladaasi iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ay u adeegsatay weerarkaasi ka hor inta aysan gaarin hawada Israa'iil, sida ay baahisay wakaaladda wararka AP. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in Iiraan ay ku soo weerartay in ka badan 100 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo xambaarsanaa bambaanooyin kala gedisan. saacado kadib markii haddana waxaa isla markaasi kadib Iiraan ay mar kale ku dhawaaqday in ay dhinaca Israa'iil ku riday gantaallo waaweyn oo khasaaro badani geysan kara. qaar ka mida gantaaladaasi Iiraan ayaa waxa ay ku dhaceen gudaha Israa'iil, ilaa iyo haatan si xog badan lagama hayo khasaaraha uu geystay weerarkaasi. Iiraan ayaa horey waxay u sheegtay inay qaadi doonto weerar aargudasho ah kadib weerarkii bishan aynu ku guda jirnay Abriil 1 lagu qaaday qunsuliyadda ay ku leeyihiin Dimashq, halkaasi oo lagu dilay 12 qof oo ay ku jiraan 2 sarkaal oo sarsaro ka tirsan ciidamada Iiraan. howlgalka diblomaasiyadeed ee Iiraan u fadhiya qaramada midoobay ayaa bartooda X-ka oo Twitterka loogu yeeri jiray ku sheegay ayaga oo adeegsanaya qodobka 51 ee axdi qarameedka qaramada midoobay in Iiraan ay qaaday tallaabo jawaab u ah falkii gardarrada ahaa ee Israa'iil ay ka geysatay halkaasi oo ay ku dhinteen diblomaasiyiin joogay Dimashq. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta.
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku bilownay sida warkeennaasiba aad ku maqlayseen iiraan ayaa weerar waxa ay ku qaaday israa'iil taasina waxa ay markaasi keentay xiisad ka dhalatay gobolka iyo weliba iyadoo dalalka reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeya ay ku dhawaaqeen inay taageero siinayaan israa'iil haddaba wararkii ugu dambeeyey oo v o edii warbaahintuba ay ka qortay ayaa sidan leh weerarkan oo ay u adeegsatay iiraan boqolaal diyaaradood oo kuwa daroniska ah iyo sidoo kaleeto gantaallo ayaa sababay xiisadii bariga dhexe inay hawada isku shareerto mar kale oo walaac weyn laga muujiyo deganaanshiyaha gobolka arrinkan ayaa waxa uu daba socday bayaan dowladda islaamiga ee iiraan ay horay ugu soo saartay goor hore aroortii axadda maanteeta ah in 10 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka soo qaadayaan weerar dhulka iiraan oo ay ku wajahan yihiin cariga israa'iil dowladda iiraan ayaa sheegtay in weerarkaasi ay israa'iil ku qaadayso uu yahay mid loogu aargudayo weerarkii israa'iil ay ku dishay dhowr taliyaal saro milatariga iiraan ka mid ah oo ku sugnaa magaalada dimashq ee dalka suuriya 1 bishan abriil ayna ku guda jirno ibraahim maxamed maxamuud bakhbakhani waa khabiir ku xeel dheer arrimaha bariga dhexe bakhbakhani asagoo ku sugan gudaha dalkan maraykanka ayaa weydiiyey cawaaqibka dhaqaale ee uu yeelan karo dagaal ka dhaca bariga dhexe dhaqaalaha waxaa la leeyahay ilaa hadeertan $100 milyan sida warbaahinta israa'iil ay sheegayso warbaahinaha ka mid ah i24 israel news ay sheegayaan ilaa $100 milyan bay ku kacday israa'iil inay difaacdo gantaalada lasoo tuuray iyo diyaaradaha bilaaduuliyaha oo ay maantaytana bilowday iiraan kadib markii isniintii lasoo dhaafay ama kowdii abriil la weeraray qunsuliyadeedii laguna dilay 7 saraakiil oo sarsare uu ka mid ahaa maxamed rida zahidi iyo generaalkii kale maxamedi labadaasi oo mas-uulo oo sarsare oo ka mid ahaa xarasi tawriga iiraanna jawaabtoodii maantayta way bixisay waxaana ololaha loogu magac daray alwacdu saadiq waxaana la leeyahay 100 diyaaradood oo bilaaduuliya ah iyo 50 sawaariikh oo kuruusa iyo 50 sawaariikh oo baalisti ayaa lagu soo tuuray dhinaca dhulka la haysto ee Filistiin iyo gudaha Israa'iil bartamaheeda warbixin ay qortay VOA-da oo lagu sheegay in militariga Israa'iil uusan inkiraynin amaba aysan xaqiijinaynin jiritaanka weerarkii 1 bishan Abriil lagu dilay saraakiil ka tirsan Iiraan ayaa waxa ay dhinaca kaleeto Israa'iil ku sheegtay in qoraalkeeda ay soo saartay ee ciidamadeeda badda si dhow ula socon doonaan dhaqdhaqaaqyada weerarada Iiraan dalalka gobolka ayaa durbaba xiisada ka jirta bariga dhexe laga dareemayaa waxaana jira dhowr dal oo xiray hawadooda kuwaas oo ay ka mid tahay Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan iyo kuwo kale waxa ayna hakiyeen dhammaan duulimaadyadii shacabka iyo kuwii kaleeto ee dalalkaasi waa kan mar kale Ibraahim Maxamed Maxamuud bakhbakhani Ciraaq iyo Urdun iyo Masar ayaa waxay u egtahay inay la safteen dowladda Israa'iil sida ay warbaahinta caalamku sheegayso wadanka Ciraaq waxay xireen hawadoodii waxayna isku dayeen inay soo ridaan diyaaradaha bilaaduuliyaha dul mareysay gaar ahaan markay dul marayeen dhinaca Kurdistan Ciraaq ama maamulka Kurdiyiinta Ciraaq sidoo kale Urdun waxay sheegtay inay iyaduna soo ridayso sawaariikhda iyo diyaaradaha bilaaduuliyaha hadday hawadeeda soo maraan wadamadaas Ciraaq iyo Urdunna waxay saaran yihiin wadada tooska ilaa Iiraan waxay u jirtaa meesha ay kasoo duqeynayso 1400 kilomitir marka waa inay hawadaas ay dushooda soo maraan marka Masarna sidoo kale waxay samaysay shir degdeg ay galeen madaxda militariga Masar waxayna sheegeen in ayaguna hawadooda wixii soo mar ay soo ridi doonaan marka kullay mandiqadu waa kacsan tahay horena Israa'iil waxay ula dagaalamaysay 6 bilood xarakada muqaawamada islaamiga ee Xamaas iyo ururka kale oo la yiraahdo Jihaadul Islaami sida lagu sheegay haddaba warbixinta VOA-da taageerada dalalka reer galbeedka ee Israa'iil ay siinayaan ayaa ah biyo kama dhibcaan maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu garab taagan yahay Israa'iil oo uu ku taageeri doono sidii ay isaga difaaci lahayd qalalaasaha uga imaanaya Iiraan afhayeenka golaha amniga qaran ee aqalka cad ee dalka Mareykanka Adrienne Watson ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay u badan tahay inuu dhaco saacado badan madaxweyne Joe Bidenna waxa uu cadeeyay ayay tiri taageerada ammaan ee Israa'iil oo ah mid bir ah waa kan mar kale Ibraahim bakhbakhani
muxsen ridai oo ah sargaal sare oo ka mid ah maamulka iiraan ayaa dhowaan wuxuu la hadlay amaxarasi tawriga ayaa wuxuu sheegay kelmad saacad ka hor yidhi calaa amriika waduula algarbiya altacaqul wa ay xamaaqa jadiida oo loola jeedo america iyo dowladaha reer galbeedka waa inay caqligooda dib ugu noqdaan doqonnimo cusub oo ay ku taageerayaan dowladda israa'iil ee dhulka haysata carbeed waxay keenaysaa inaan tirtirno nihaayati hada alkayaan ama israa'iil la tirtiro waxay u eg tahay dagaalka sida uu sheegay intuusan bilaaban ololaha loogu magac daray wacdu saadiq sida uu sheegay cali khamaani oo murshidka ugu sarreeya iiraan waxa uu yidhi america dagaalkay ku jirtaa ingiriisku dagaalku ku jiraa wadamada urdun ay ka mid yihiinna dagaalkay ku jiraan marka dagaalkan wuu ballaartay waxayna u badan tahay in ay maraykanku iyo israa'iilna ay jawaabi doonaan jawaabtaasay ku xiran tahay iiraanna jawaabta labaad ay bixin doontaa iyaduna dagaalka israa'iil iyo xamaas u dhexeeyey oo soo bilowday 7 bishii oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu galay bishiisii 6aad waxaana ku dhintay in ka badan 33,000 oo falastiiniyiin ah iyo dhowr boqol oo israa'iiliyiin ah waxaana uu reebay masiibo bini'aadanimo iyo deganaanshiye la'aan guud ahaanba gobolka iyo dalalka isxulufaysanaya ah. haddaba qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe ayaa waxa ay xireen hawadooda iyada oo sidoo kaleetana la baajiyey diyaaradaha badan oo u safreeya qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe. haddaba saameynta dagaalkan iyo sida uu ku bilaabmayba waxaa inoo falanqeynaya maxamed nuur qalimow oo falanqeeye ah ku nool dalka Britain waxaana khadka telefoonka kula xiriiro ku wareystay Ismaaciil Xuseen Farjar. waa la filayay intaaba in maaragtay mar un ay Iiraan soo qaadi doonto inay weerar ama si un ay uga arsan doonto Israa'iil marka saacadii ugu dambeeyey ayay dagaal weerar ku soo qaaday oo xagga gantaalo iyo droniska diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku soo qaaday Israa'iil muddo badan ayayna hawada kusoo jireen laakiin haddeer sidan shaashadaha ka arkayno waxaa bilaabatay inay magaalada Tel Aviv iyo laga shiday dhawaaqa digniinta bixiya ee ah in madaafiic ay kusoo dhacayaan ama kusoo dhow yihiin dadweynahan loo sheegay inay galaan meelaha looga badbaadi karo madaafiicdaasi waana arrin degdega run ahaantii arrinkani waa arrin la filayay waxaase cajiiba in isla markiiba ay dowladda Maraykanka iyo dowlado kale ee kuwa jaarka iyo ay tallaabooyin qaadeen Israa'iilna ay leedahay waan iska difaaci karnaa iyadoo sheegtay inay iyaduna ka aarsan doonto taasoo noqon karta mid gobolka oo marka horeba bariga dhexe aan ogeyn inuu yahay gobol colaadiisu ay badan tahay tanna ay kusii korodho. waan gartay ilaa hadda weerarkan ay Iiraan sheegtay inay ku qaaday Israa'iil saameyn noocee baa ka dhalatay? mahadsanid bariga dhexe waxaan ognahay inay xudun u tahay shidaalka caalamka oo sida badan halkaa un ay ka yimaadaan taasoo kalefi karta in caalamkuba xitaa shidaalka uu ku qaaliyoobe noloshii ay qaaliyoodo iyadoo marka horeba dagaaladii hore ay waxyeeleeyeen oo shidaalku horeba hor ugu kacay oo nolosha aadamiga aad u saameeya dagaalkii Ukraine oo markuu bilowday uu kor u kacay haddana kii bariga dhexe oo hadda iskula jiraan Falastiin iyo Iiraan iyo Falastiin yani iraahde Israa'iil kana uu noqon doono kii ugaba sii dari lahaaba oo xaaladda ay aad uga sii maaragtay ay xumaan doontay sidii hore iyadoo hadda Iiraan aan la ognahay inay xiriir leedahay Yemen iyo Xuutiyiinta meelo kale marka dhibaatadu aad runtii aad waa ka sii daraysaa maalimaad ka dambaysa. waan gartay sidee ayaa looga falceliyey tusaale ahaan dowladaha waaweyn oo kale Maraykanka oo kale ama oo ka mid a dhinacyada isha aadka loogu hayo sidee bay arrintan uga falceliyeen? isla markiiba adduunkiiba waa yani waxaa bilowday wadahadal diblomaasiyadeed iyo la tashiyo iyo sidaan ognahay madaxweynaha Maraykanka Biden oo fasax ku jooga magaaladiisii Delaware ayaa degdeg wuxuu ugu soo noqday Washington isagoo la tashi shir bilaabay la taliyaashiisa ciidanka ammaanka iyo sidii laga yeeli lahaa taasoo ku tusaysa in arrin aad u culus oo waliba maaragtay Maraykanku uu aad u danaynayo inay tahay isagoo dhaqdhaqaaqiisa ciidamada ka jooga bariga dhexena maaragtay heegan la geliyey. waxaa kaloo jira in Masar ay ku dhawaaqday madaafiicdeeda ama gantaaladeeda wax difaaca ay heeganka ugu sarreeyay gelisay in dowladaha u dhow
israa'iil oo idil ay hawadooda xireen sida jordan, ciraaq iyo dowlado kale ay hawadaba xireen oo wax diyaarada aynan hawadooda soo geli karin ilaa inta dagaalkan madaafiicda iyo daroniska ay socdaan. gobolka oo dhan ayaa wuxuu galay heegan. marka bariga dhexe xaalad xun ayuu ku jiraa, isagoo marka horeba mid dagaal joog ahaa ayaa haddana caawa waxaaba u bilowday maanta ilaa iyo haddana socda dagaal iiraan iyo israa'iil oo weligood isku faruuqaninsan jiray. waxaan filayaa weligeed kama aynan jawaab celin iiraan, laakiin waan aarsan doonaa ayay dhihi jireen. taasoo jeer ayaa dad laga dilay saraakiil, laakiin markani waxay noqotay inay dagaal ama hawada ha noqotay ama si kaleba ha noqotay hadduu sii fudana ay u diyaargarooday inay bilowday. haddana israa'iil siday uga falcelin doonto iyo maraykanka oo garabkooda iyo reer galbeedka already bilaabayba inay hadallo yidhaahdaan, iyagoo marka hore aananba wax yani cambaarayna ku samaynin. markii iiraan laga dilay nimankaa saraakiisha ah ayaa hadda already waxay bilaabeen inay cambaareeyaan gantaaladan ee iiraan soo tuurtay. marka adduunka oo idil waxaad moodaa in uu geli doono ciriiri dhaqaale, waayo shidaalka ayaa noloshoo dhan aad u xukuma. haddaad dib u yar milicsato maxaa iiraan ku kalifay in ay weerarkan qaado? mahadsanid. in iiraan ay ka falceliso ama dagaalkan gantaaladii isugu jira daroniska ay qaado waxaa ku kalifay markii weerar lagu qaaday safaaradooda ama qunsuliyadooda ku taalay syria, laguna dilay nimanka generaalada ah dowladdana maaragtay aad uga xumaatay, taasoo kaliftay in ay ballan qaadaan inay ka aarsan doonaan. waxaa kaloo jira iiraan ma aha markii ugu horreysay ee saraakiil ama dad sare looga dilo ama ay yuhuudda ay ka disho, laakiin in badan way isqaban jirtay. laakiin haddeer waxaad moodaa in ay gaareen heer ay ku qasbanaadeen inay ka falceliyaan. ugu dambayntii xaggeeba xaaladdu ku dambayn doontaa? ma socdaan se dadaallo la doonayo in xaaladdu aanay faraha ka sii bixin? lama sii saadaalin karo horta sida ay ku dambayn doonto. wax walbana waxay ku xiran tahay sida ay uga jawaab celiso israa'iil. haddii jawaab kale ay soo celiso waxaa laga yaabaa iiraanna inay uga darto oo gantaaladii iyo dagaaladii iyo markaan uba noqdo dagaal loo soo wada banbaxay oo qolo walba qolada kale ay maaragtay dagaal loo kala aabayeelin oo ama gantaalla ha noqdeen ama diyaarada ha noqdeen ama laakiin wax diblomaasiyad oo ilaa haddana socda ma arkayno, waayo saacadihii ugu dambeeyey bilowdeen. maxamed nuur qalimow oo ah falanqeeye ku nool dalka britain oo khadka telefoonka ee halkaasi ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar ayuu kaasi ahaa. dhegeystayaal, wararka ku salaysan iiraan iyo israa'iil iyo weeraradaasiba waxa aad ku maqli doontaan ayagoo faahfaahsan idaacadaheena soo socda. mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. dalalka qurbaha ee dad badan oo Soomaaliyeed ay yimaadeen ama u soo hayaameen 30 sano ee ugu dambeysay ayaa si weyn uga duwan sidii Soomaaliya loo xanaaneyn jiray dadka marka ay waayeel noqdaan ama ay gaboobaan. xarumo waaweyn oo lagu hayo dadka marka ay gaboobaan ayay dowladuhu gacanta ku hayaan, gaar ahaan dowladdan Mareykanka, taasi oo ay gacan ka geysato daaweynta, cuntooyinka iyo sidoo kaleeto dadka haynaya dadkaasi mushaaraadka la siiya. haddaba
waxaan khadka telefoonka ee gobolka ohaayo aan kula xiriiray xasan cumar cali xasan dheere oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee ohaayo wuxuuna iiga waramay kala duwanaanshiyaha xanaaneynta waayeelka soomaaliya oo dadka ehelka ay xanaaneyn jireen iyo qurbaha oo si ka duwan sidaasi loo xanaaneeya haatan. waxyaalaha ay kala duwan yihiin waxa weeyaan marka uga soo mahadsan tahay waayeelada soomaaliya markay joogeen waxay ahaayeen hogaamiyeyaasha bulshada, nabadoonnada, jiifyada, caaqilada bay ahaayeen. waadna og tahay xataa xilligan aan ku jiro ilaa iyo civil warkii soomaaliya dowlada kama jirin, iyaga ayaa waxay u yihiin bulshada u ahaayeen hoggaan welina u ah. hase yeeshee markii ay qurbaha yimaadeen oo maraykanka yimaadeen roolkaas waa dhammaaday ama meeshii ay ka ciyaari jireen bulshada wuu dhammaaday oo waxay noqdeen meel dadka waayeelka ah oo markii 65 sano ay gaaraan howlgab laga dhigo, islamarkaasna hay-ado u xil saaran oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa senior options iyo office agent ama xafiiska dadka waaweyn ama dadka waaweyn howlaha u shaqeeyay. marka wax weyn baa u dhexeeya markii ay gaaraan 65 sannadood brogaraamo ama arrimo gooni ah oo dhaqaale ama ku saabsan ama caafimaad ku saabsan oo si gooni u saabsan baa loo habeeyaa waddanka. waayahay marka waxaa jirta in Soomaaliya kaba soo qaadba waayeelada ay dadka eheladooda dhowdhow ah ilmaha ay waalidka labaad u yihiin dadka ka agdhow loo gargaari jiro oo wax loo qaban jiro. halkan si ka duwan sidaas ayay tahay oo hay-ado ayaa dadka ku shaqale markuu qofka weynaado xarumo gaaro lagu hayo ayaa jirto. maxaa dareemi kartaa in farqiga u dhexeeya uu yahay? horta marka koowaade nidaamka waddankan ka jira waa nidaam muddo badan soo jiray. dadkuna adduunku wuxuu leeyahay dhaqamo kala gedisan iyo diimo kala gedisan. annagu dadkeena waa dad islaama, waxaan aaminsannahay in waalidkaaga iyo hooyadaa ay jannada ku jirto oo aadan caasi ku noqon. laakiin meeshan arrinku waa ka gedisan yahay oo ma jirto fikirkaasi ma jiro. sidaa daraaddeed dawladdu waxay u samaysay brogaraamo fara badan oo xitaa waxaa jira xanaanada carruurta baa jirta, waddankeenna baa jiri jirtay. maraykanka waxaa ka jirta xanaanada dadka waayeelka ah oo lagu hayo. waxaa la siiyaa waxa la yidhahdaa medicare baa la siiyaa ama dawo si gooni loo daweeyo. guryaha la siiyaa la yidhahdaa senior maxaa la yidhahdaa homes baa loo dhisaa iyaga gooni u ah. waxay lagu talagalaa waxay leeyihiin xitaa si aan loo abuse garayn ama loo xumaynin waxay leeyihin waxa la yidhahdaa senior protection agency oo difaacda xuquuqdooda. marka marnaba kuma xirna dhal ay dhaleen ama maxaa la dhihi jiray waa sida dadka maraykanka uu yahay. annagu laakiin weli dhaqanka iyaga waanu haysanaa oo in badan baa weli isku tiirsan. inkastood arkaysid islaamo soomaali ah oo keligood guri degan oo ku nool. waxaa kaleeto oo jira meeshan qofku markuu da'daas gaaro waxaa la siiyaa lacag yar oo uu ku noolaan karo iyo cunto uu ku noolaan karo iyo dawo uu ku noolaan karo. sidaa daraaddeed uma baahna family uma baahna mar walbaba ama raashin siiya ama cunto siiya ama dawo siiya. waayahay qofkii maadaama ehelkiisa ama ilmaha uu dhalay ama kuway sii dhaleenba shaqo iyo iskuulle iyo nolosha adduunka ay ku xiran tahay qofka oo looga tegaya isagoo waayeela guriga ama ay dhici karto inuu cidlo muto ka sokow hay-adaha kuwa aysan heenin. sidee ayay caqabad ugu tahay waalidiinta marka ay waayeelo noqdaan ayagoo luuqadihii xataa ay ku adag yihiin in guryaha looga tago? runtii waa arrin aad iyo aad u dhib badan. waxaa nasiib wanaaga soomaalidu markii ay waddanka timid oo hore dhib badan baa jiray, laakiin intii dambe oo 20 sano tagtay soomaalidu waa is urursatay. magaalooyin bay isugu tageen, ay wada degan yihiin. makhaayadaha la furay, waxaa la furay moolal yar yar oo dadka soomaalida ay leeyihiin, suuq yar. taasi waxay keentay in qofkii waayeelka ahaa subaxii inta soo kallaho uu u yimaado saaxiibkiisii kaleeto oo meesha fadhiyey oo meeshiiba fadhi ku dirarba lagaba sameeyo ama siyaasad ay ku falanqeeyaan oo sida soomaaliya oo kaleeta. marka soomaalidu runtii waa jiraan dad aad u fara badan oo guryaha jooga oon cido haynin. iyadana waxaa loo diraa oo haya dad nursing ama dad loogu talagalay oo la yidhaahdo dad xanaanada guryaha oo guryaha loogu tagaa lagu daweeyaa. marka dhaqankii soomaalida oo ah qofka waayeelka ahu inuu asagu taliyana meeshaan ma jirto, asagii baa loo taliyaa.
kaasi waxa uu ahaa xasan cumar cali xasan dheere oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ohaayo oo iiga warramaya khadka telefoonka ee gobolkaasi xilli aan wax ka weydiiyey habka loo xanaaneeyo waayeelka dalkan jooga ee soomaaliduna ay ka mid tahay.